waxaa saaka laga tukaday dhammaanba gobolada iyo degmooyinka Somaliland salaada roobdoonta oo uu madaxweynaha Somaliland ku dhawaaqay toddobaadkiina soo dhaafay si looga duceysto abaaraha iyo roob yaraan soo wajahday deegaano badan oo ka tirsan Somaliland waxaana guud ahaan maanta fasax ahaa xarumihii waxbarashada iyo shaqaalaha dawladda madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ay wehelinayaan wasiiro siyaasiyiin xildhibaano iyo culimo diin ayaa dadweyne aad u fara badan oo isugu soo baxay garoonka ciyaaraha ee 31 May si wada jira kula tukaday salaada roobdoonta markii ay soo dhamaatay salaadaasi iyo qodobadii ay jeedinayeen culimo diinka halkaasi ku sugnaa ayaa waxa goobtaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seelici kureeka lahaya iyo roob la'aanta haysana adoo dareesantiin maanta Hargeysa balbal kala ugu dambaysan kan waraysiga dadka tawarahaynay Hargeysa aynu joogno maanta caasimada Somaliland kureeka iyo dhibtayna haysa adoo dareesantiin waxa la nooga baahan yahay walaalkii sheekhu noo sheegay inaan is afino in caloosheena wanaajino in xasadka iyo xumaanta iyo nimanka kale maarta jiidanayo walaalkii maarta waxa wanaagsan oo golaan leeyahay inaan iska dhaafno dadku markay isku wada uurfayoobaadaan iyo ilaahay isagana iyagana naxariistaayo ilaahay wuxuu yidhi waan ku arsaaqaa ummadda niyadooda haddii ummadda niyadooda wada wanaagsanaato ilaahay arsaaqadana wuu noo kordhini مدرك يعرف خير قبنا ونحلنا عرف يدرك على بركة سيرها ونصيرها وعن مدرك رئيس مالان انت هاكي يرجوكتا يعني انت ما تيجي سنة ساعة دافع الدنيا ما هي مركز الجوجنا واحد لو بعين هاي واحد هو قال إن جوشة الدنيا يتأخر لنا بضما إنه يسامحنا إنه بعمل قصنا إنه الدنيا إنه متحي وعن متى ساعتها إن سومالان براري بالواقع قادو إن Somaliland ay noqoto dal xora oo ka mid noqda dalalka caalamka la ictiraafsan yahay ee jamciyadda Qur'aanka ka mid noqda sida darteed waxa looga baahan yahay in isku afino in isku caaw wanaagsanaano in wanaagana isku farno xumaantana iska wada reebno haddaba salaadan roobdoonta ah ayaa dhammaanba maanta dadweynaha ku dhaqan Somaliland isugu soo baxeen masjidyada waaweyn iyo goobaha lagu tukado salaadaha ciida iyadoo culimo diinka masjidyadana halkaasi ay ka soo jeediyeen khudbado ku saabsan faa'iidooyinka iyo muhiimadda ay leedahay in salaadan roobdoonta ah la tukado Muntaas Umar Guleed